بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. walaaladayow sheeg haddaynu qaadanay ducooyinka iyo qaababka loo ducaysan lahaa xilliga istijaabada ducada hadaynu halkan kasii hore qaadno kitaabkan waxaa kitaabka la yidhaahdo aljawaab alkaafi liman sa'ala can addawaa ashaafi ibn alqayim aljawziya oo qoray. wuxuu yidhi waxa uu soo xusay buu ku yidhi ibnu abi dunya kitaabkiisa la yidhaahdo almujaabina fi ducaa dadka ducooyinka loo ajiibo waxa kitaabka uu bixiyey magaca u bixiyey inuu alxasan uu soo wariyey buu ku yidhi nin ka mida saxaabadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo bani ansaari ah nin ansaari ahaa oo lagu naanaysi jiray abi mucallaq wakaan wuxuu nin taajir buu ahaa oo ganacsato ah oo xoolihiisa iyo xoolaha qeyrkaba ku taajiro oo dadku dhiibtaan ka intuu safro magaalooyinka soo maro dee wixii ilaahay kusoo siiyo la soo xasiliyo dadka la qaybsado ama ay shuraakan yihiin ninkaasoo ahaa buu ku yidhi nin naasika u warica oo xalaal miirata ah oo ilaahay ka baqdo oo dee mataqaana nin saalix ah ayaa maalin wax kusoo baxay nin tuuga kusoo baxay oo af xiran oo hubaysan oo hubsita kaasuu ku yidhi dac maa macaka waxaad haysin halkaa bartaa dhig fa innii qaatulka ninku dilaya kowkaasinee baan haye dhig buu yidhi ninkii saxaabiga wuxuu ku yidhi maa turiid min dami maxaad dhiigay ka rabtaa fa sha'nuka walmaal xoolaha qaada haddaad rabtido qaala ama almaal buu xoolaha kolleyba waa kii qaata baan ahay buu ku yidhi laakiin dhiigaagana waan rabaa kaasuu yidhi haddaba maadaama aad diidday ilaa inaad didishid maahaane fa iska kaydaa ani yar 4 ragcadood aan tukade tuka buu yidhi inta doontid tuko buu ninkii tuugaa ku yidhi ninkii wuu weysaystay saxaabiga ahaa markuu weysaystay uu tukaday 4 ragcadood ducadiisii waxaa ka mid ahayd aakhir sajdadii u dambeysay sujuuday waxaa ka mid ahayd ducada ku ducaysanayay yaa waduud yaa dal carshi almajiid yaa facaalan limaa turiid as'aluka bicazika aladii laa yuraam وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفني شر هذا اللص يا مغيث غثني يا مغيث غثني يا مغيث غثني 3 مرات إلهي عرشك مجيدك لهايو إلهي waxaad doonto sameynayay ka yeelay waxaad doonto ka yeelay facaal ma waxaad doonto sayeelayo waxaan ku weydiistay cizigaaga eenan matqan maraba guureynin ama dul ama mulkigaaga ana mar wada wareegaynin maxaan kula fiimaa macnaa iyo nuurkaaga carshkaaga buuxiyey inaad iga kafaysid iga filnaatid sharka tuugani yaa muqiid gurmadow iisoo gurmo ilaahiga wuxuu gurmanaya dadka iisoo gurmo buu ilaahay ku celi 3 jeer ku celiya muqiita qitni iisoo gurmo ilaahayow faidaa buu ku yidhi wuxuu arkay bifaarisin aqbala biyadihi nin faarisa oo halgamaya ah oo soo socda biyadihi xirbatun qad wadacaha bayna udunay farasi xirba warankii oo faraskiisa labadiisa dhagood dhexdooda saa u soo geliyey oo soo ordayay falamaa basara bihi lismar alma ku tuugii arkay oo u soo dhowaaday ayuu geliyo kow ka siiyey ninkii faariskaaba tuugii kow ka siiyey dilay markaasuu u soo jeedsaday kaasuu ku yidhi ninkii tukanayay kac qum kaasuu yidhi man anta biabii anta wa ummii ayaa tahay buu yidhi aabbahay hooyadii baan ku furtay ayaa tahay faqad agaathanii allahu bika alyawm maanta ilaahay aduu igu kaasoo gurmay taqanaayay igu badbaadiyay dee igu soo gurmadiga kaasoo dhigay kaasuu yidhi anaa malik ninkii baa hadlay wuxuu yidhi anaa maliku min ahli asamaa araabica malak baan ahay samada afraad dacawta biducaa'ika ducadaadaad ku ducaysatay ayaa mataqaanaa samacat alabwaab asamaawaat qacqaca cirka samadii waxaa loo maqlay qacqaca cod bay samay samadii abaakiba furantay uma dacawta biducaa'ika athaani mar labaadka ducadaad ducaysatay samacat ahli samaa ahli samadii dhanba dajid maqlay dhawaaq iyo qab iyo mataqaan sanqadh ma saddexaadka marka aqithniyaad ku celisay yaa muqiitha aqithni ma saddexaadka ducadaad ku celisatayna faqiila lii waxaa lagu yidhi waa ducaa makruub qof kurbadaysan ayaa baahanoo bartooyamaya oo ilaah baryamay fas'altula ilaah waxaan baryay inuu ilaahay ii waliyo aniga ii kalifo inuu ninkaas soo dilo markaas buu ku yidhi xasan haddii buu yidhi qofku uu weysaysto uu 4 ragcadood tukado uu ducadaa ku ducaysto istujiiba lahu makruuban kaana aw ghayra makruub qofka saa sameeya buu ilaah uu ajiiba insha allah buu ka wadaa hadduu kurbadaysanaya hadduuna kurbadaysanahayn markaasi haddana intaas soo qaadano axbaabi fillaah waxaa mudan inaynu idhaahno faahfaahinta kathiiran maa najid adciyatan dacaa biha qowm fastujiiba lahum marar badan baynu agnaa ducooyin dadku ay ku ducaysteen dad qowm ka mid ay ku ducaysteen oo loo ajiibay fayakuunu qad iqtarana waxaa la kulmay oo la xidhiiday
ama la weheliyey ducada ay ducaysteen daruurad ama baahi qofkii la saaxiib ahayd oo ilaahay u soo jeeday yani qalbigiisa ay ka go'nayd oo qof dee baahan ducadiisa ay ahayd ama xasanad wanaagsan uu hore usii horumarsaday dhanka ilaahi subxaana watacaala oo markaa ilaahay ijaabada ducada u ajiibayna ay mahad ay ilaahay ugu mahadina tahay xasanadiisa wanaaggii hore usii sameeyey sababteed ducada lagu ajiibay ama inay saadiftay oo la beegantay ducada la ducaysanaya goor waqti ijaabada si waqtiyada sheed soo qaadanay ee saacada ijaabada ka sheekeynayay wanaxwu daalika wixii la dhigmo buu kuli fa ujiiba dacwatu saa darteed ba ducadiis wuxuu ku ducaysanayay loo ajiibay markaasuu laakiin u malaynayaa qofkii malo u malaynaya inay sirta ku jirto ducada qaabka u ducaystay hadalladii ku hadlay inay ahayd oo ereyadii qandhaxo sidoodii uun ayuu u qaadanaya taasuunan ogeyn wixii lasoo rifaaqay ee la socday ducada goortu ducaysanayay wahaakada buu taas waxaa lamida buu ku yidhi hadduu qof dawo isticmaalo naafica oo manfacad leh waqtigii u baahnaa dawadaas u isticmaalay uu ka faa'iidaystay markaasuu qayrkii u malaynayaa inay dawadu oo sideeda u qandhaxilo isticmaalaa inay ku jirto faa'iidadii muraadka la doonayay taasina waa khalad saa darteed buu ku yidhi dad fara badan ku khaldamaan goobo badan ku khaldamaan oo malaynayaan inuu qofku buu ku yidhi waxaa lamida buu qof hadduu mataqaanaa u ducaysto duco ku ducaysto kii baahan oo mudara oo mataqaanaa dee qof dhibaata haysan kurbaysani qabri korkii kii ducaysanaya oo ducadii loo ajiibo ayuu jaahilnimadiisa u malaynayaa inay sirtu ku jirto qabriga mana oga buu ku yidhi inay sirta ku jirtay baahidii u baahnaa iyo ka dhabtii ahayd ilaahay usoo jeesaday uu ilaahay u baryey hadduu ka samayn lahaa baryada baahida iyo ducada isku beegin lahaa guri ilaahay guryaha ilaahay mid kamid ah oo kiisaa u baahan ilaahay u baryi lahaana kaasaa oo loola ajiibi lahaa ayaa kana fadli badnaan lahaa dhanka ilaahayna ilaahay uu ka jeclaan lahaa waayo waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay ilaahay isku jabiyey ilaahay subxaana watacaala ayuu usoo muujiyay marka ilahayna uu ajiibay marka in la ogaado saacadihii iyo mataqaan hadalladii iyo wixii hormarayay ducadaadii iyo qaabkaad ahayd marka ducaysanaysay waa wax mudan wuxuu ku yidhi adciyada la ducaysanay waxay kala mid tahay hubkii qofku isticmaalayay hubkana waa wax loogu dilo silaax bidaaribi waxaa lagu dila buu ku yidhi maaha intay hubku maaha inuu dee sayfaysan yaho mataqaan uu adag yaho qura maahee waa qaabkii iyo taamkii loo isticmaala buu ku yidhi mataa kaana silaax silaaxan taaman la aafata bihi mar hadduu hubku yahay la isticmaalaya la ganacsanaya mid aanan aafo lahayn oo dhibaato lahayn oo saacid gacanta lagu tuurayana intay gacan xoog laho quwad leh walmaanic mafquud wixii hor joogsanayaan oo meesha aanay jirin oo dee mataqaanaa maanic u noqon lahaa ducada waxaa la ajiibo xasarat bihi nakba fil cadow hoogii jabkii cadowgii kuubsanay maadaama hubkaas hub diyaar yahay wamataa takhallafa buu ku yidhi goortii wax ka maqnaado qodobada saddexdan soo sheegnay takhallafa ta'thiir waxay manfacadii oo dhammaystiran baa kala dhinaanaysa fain kaana fii nafsihi hayra saalix hadduu qofku nafahaantiisa hayr saalix ahayn qof wanaagsan u ahayn ama daaci ama daaci lam yajmac bayna qalbihi ama qofku markuu ducaysanayo una qalbigiisii carabkiisiba ducadii isnoo rifaaqinin ama buu kuli haddii wax hor joogaan ducadaasi muraadkii lama helayo marka waxaa doonaya qofku inuu naftiisii qalbigiisi xaadir yahay qalbigiisii iyo carabkiisii xaadir yihiin wax hor joogo mataqaana ducadaasi inay jirin oo maalxaraan cunay ama mataqaanaye qatca raximu ku ducaynayo mataqaana ama xumaan ku ducaynaya inaan jirin ama habaar qof habaaraya gardarro inaan jirin goorta marka waxaas wax faa'iido ku jirto oo wixiis wada rifaaqeen saddexdii qodobba ilaahay mataqaana subxana wataala waa ajiibaya ilaahay ducooyinkeena qaar uu ajiiba ilaahay naga dhigo qaar ilaahay subxana watacaala hadalkooda mataqaanaaye dhulka ay ka ducaystaan cerka looga ajiibo looga gurmado oo loo gargaaro ilaahay ay naga dhigo dembigeena dembi waadkeen ba ilaahayna dhaafo shafaacada nabigeena ilaahayna horseedo cafi caafimaadna ilaahayna siiyo adduun wanaagsan iyo akhrisan ba ilaah weydiisananaa sheer gareeya kaliibka insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu